Assalaamu calaykum. Walaalayaal waa idin salaamay. Maanta waxaan doonayaa inaan mowduuc aad iyo aad muhiim u ah ka hadlo. Mowduucaas oo faro ba'an ku haya dhalinyarada maanta nool. Mowduucaas ay kala kulmaan dhibaatooyin aad iyo aad u badan dhalinyarada maanta qarnigan nool. Waa mowduuca loo yaqaano sigaysiga iyo daawashada muuqaalada aadka u xunxun. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Haddaba haddaynu mowduuceeni gudaha u sii galno, maxaa ka dhalan kara daawashada muuqaalada lagu soo bandhigo anshax xumada? Daawashada aflaantan maxay ka beddelaan maskaxda bini'aadanka? Casharkan wuxuu diiradda saarayaa arrin ku badan dhalinyarada qarnigan oo ah daawashada aflaanta anshax xumada ah. Waxaana arrintan lagu arkaa inta badan dhalinyarada da'doodu ay u dhaxayso 12 ilaa 30 sano. Waxaa waayahan daba soo badanaya saameynta xun ee ay leeyihiin daawashada muuqaalada lagu soo bandhigo anshax xumada. Daawashada filimadan ayaa sababa in maskaxda laga soo daayo hormoonnada kiciya shucuurta qofka, taas oo sahlaysa in dadka daawada anshax xumada ay qabatimaan daawashadan aflaanta noocan ah. Filimadan ayaa ku yeesha maskaxda saameyn waqti dheer qaadata. Haddaba, daawashada aflaantan maxay ka beddelaan maskaxda bini'aadanka? Daraasado badan ayaa tilmaamaya inay arrintan dhaliso dib u habeyn ka dhacda maskaxda, taas oo beddel ku keenta qaab dhismeedka maskaxda iyo shaqada maskaxda, waxayna sababtaa in la qabtimo ama la caadaysto arrintan aadka u foosha xun. Marka qofka uu samaynayo galmo iyo marka uu daawanayo muuqaalada lagu soo bandhigo galmada, waxaa kor u kaca heer hormoonka loo yaqaan dopamine oo ah hormoon mas'uul ka ah shucuurta qofka. Marka qofka uu badiyo daawashada aflaanta xunxun, wuxuu jirkiisu la qabatimaa heerka sare ee hormoonka loo yaqaan dopamine. Daawashada muuqaaladaas waxay dhalisaa in lala qabatimo ama la caadaysto ama la joogtaysto. Hormoonkan waa fariin gudbiye laga soo daayo maskaxda, sidoo kale waa hormoon dhaliya rabitaanka galmada. Saameynta aflaanta anshax xumada lagu soo bandhigo ayaa sahlaysa in maskaxda uu ku dhaco isbeddel qaab dhismeed ah iyo shaqada hormoonnada oo isku dhex yaaca. Maskaxda qofka waxay u baahanaysaa inay dareento farxad ka dhalata dopamine, hormoonka loo yaqaan. Sidaa darteed, qofku wuxuu badinayaa daawashada aflaantan. Mar kastana waxaa kor u sii kacaya awoodda wax kicin karta sida inuu qofku joogteeyo daawashada muuqaaladan foosha xun. Muuqaaladan waxay yareeyaan maskaxda qofka bini'aadamka ah. Haddaba ragga daawada muuqaalada galmada ah waxay yareynayaan maskaxdooda. Waxaa sidaas ogaaday cilmi baarayaal u dhashay dalka Jarmalka. Aagga maskaxda ee loo yaqaan striatum area waa mid la xiriirta niyadda iyo qofka farxaddiisa. Qaybtan ayaa ka yaraata dadka daawada aflaanta xunxun. Daraasad ayaa hoosta ka xariiqday markii ugu horreysay in daawashada muuqaalada xunxun ay dhaawac jirka u geysatay maskaxda. Dadka caadaystay daroogada iyo dadka la qabatimay muuqaalada baahiya galmada waa isku mid maskax ahaan. Marka la saaro kombiyuutar dadka caadaystay daawashada muuqaaladaas iyo dadka la qabatimay daroogada, waxaa arrinkan in hal aag oo ka mid ah maskaxdooda ama hal qayb ay kor u kacda fariimaha laga soo gudbiyo. Aaggaas ayaa ah mid shaqo ku leh dhiiranaanta qofka iyo dareenka abaalmarinta marka qofka uu helo waxa uu rabay. Inkastoo aan ognahay daawashada aflaantan inay tahay diin xumo, waxaa jira dad badan oo aan ogeyn halista ka dhalan karta dhaqanka noocan ah. Dhibaatadan waayahan soo ifbaxaysa ayaa ah in dadka daawada ay la dariisto howlgab dareeb la'aan ah, murugo badanna ku keenta ragga maanta dunida nool, halisna ku ah in guriga ragga daawada muuqaaladan uu burburo ama guurkaasi uu noqdo wax ka kac ah. Haddaba dadka caadaysta muuqaaladan foosha xun ama sigaysiga waxaa loo yaqaano oo afka qalaad lagu yiraahdo masturbation, waxay leeyihiin dhibaatooyin aad iyo aad u badan. Dhibaatooyinkan ayaa halkan kugu soo gudbin doonaa. Waxaana lambar 1 ka ah daal iyo tabar darri joogto ah, xanuun dhabarka qaybtiisa hoose ah,
timaha oo yaraadaan ama daataan, dareen la'aan iyo biyo bax degdeg ah oo afka qalaad lagu yiraahdo premature ejaculation, aragga oo caadi yeesho, bisqinleyda iyo xaniyaha oo xanuun iyo casiraad laga dareemo moqor miskeedka iyo dabaqsanaanta. Qofku wuu caadaysan karaa ama dhib ayay hadhowdii ku noqonaysaa in uu iska gooyo caadadan. Waxay kaloo keentaa waxa loo yaqaano semen leakage oo ah in biyuhu iska soo dareeraan iyadoon wax dareen ah uusan jirinba. Dhibaato nafsaani ah sida hilmaamida iyo xifdin la'aanta. Haddaba haddii aan qodobadaas ay yihiin qodobada dhibaatada qofka bini'aadamka ah ku dhacaya marka uu sameeyo muuqaaladan foosha xun ama uu daawado ama uu sameeyo waxyaalahan loo yaqaano siigaysiga, haddaba qodobadan waxay kugu caawinayaan ayaguna inaad iska dhaaftid caadadan foosha xun. Waa qodobka koowaade, inuu qofku guursado haddii uuba awoodo. Haddii aad guursatid maba ku dhacaysid muuqaaladan aadka u fool xun, mana daawanaysid because waxaad leedahay meel aad ku jihaysan tahay aadna aadi karto markii uu dareen ku soo wajaho. Qodobka labaad, inuuna qofku iska badin cunitaanka iyo cabitaanka, taasi oo markasta keenaysa dareen iyo rabitaan jinsiyadeed. Waana sababta rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu u faray qofkaan awoodin inuu soomo, qofkaan guur awoodin inuu soomo yacni. Lambar 3, inuu qofku ka fogaado waxyaabaha dareenkiisa kicinaya sida buugaagta iyo sawirada qaqaawan iyo aflaanta waxyaalaha qaqaawan lagu soo bandhigo. Lambarka 4, qofkii qurux uu qalbigiisa ugu raaxeeyo raadinaya waa inuu daawadaa dhirta cagaaran, ubaxa, badaha iyo quruxda dabiiciga ah ee Eebbe koonkan ku manaystay sida buuraha dhaadheer. Qodobka 5, inuu qofku doorto saaxiibo wanaagsan, dhowrsan, hanuunsan, diintana ku dhaqma, markuu xumaan ku jirana ka celiyo oo yiraahdo walaala sidaan maahan. Qodobka 6, inuu qofku qalbigiisa ku mashquuliyo shaqo, waxbarasho, cibaado iyo Alla ka cabsi, oo uusan marnaba nafta fursad u siinin inay ka fakirto waxyaabaha aan habboonayn. Qodobka 7, inaanu qofku ku seexan gogol raaxa leh, cuud iyo catarna lagu shiday ama korkeeda lagu shiday, oo xasuusinaysa inuu galmo u baahdo ama uu xilligaas raadiyo qof uu la galmoodo. Lambarka 8, inaanu qaadan dharka aadka u jilicsan, iskuna shubin baraafuunada dareenka kiciya. Waa qodobka 9, inuu qofku ka fogaado isdhexgalka ragga iyo dumarka, gaar ahaan dumarka ama dadyowga aan cawradooda dadan, dareenka dadka kalena aana u aabayeelin oo aan wax dana ka lahayn. Qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka 10, inaanu seexan isagoon hurdaysanayn si aysan maskaxdiisu u raadin waxyaabaha xunxun ee ku boorinaya inuu galmo sameeyo. Walaalayaal, 10kan qodob ayaguna waxay kaa caawinayaan oo hadda halkaan aan kuugu sheegay inaad iska dhaaftid caadadan aadka u foosha xun. Waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin oo inii soo gudbiyay muuqaalkan. Maanta kadib waxaan rajaynayaa inaadan caadadan samayn doonin, aanad go'aan ka qaadanaysid inaadan mardanta samayn.